الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبوري الله سبحانه وتعالى يا محسن ومدشان أنا ما دعينا نوصل لنا قوة كلنا كسوكو وحنا ما دعينا دمان غيرنا برنامج كان كسوق قشي وحنا نكره لنا وقت غير برنامج كوديم ينوغل عي كل يوم صوبت وديم برنامج كوغل عي وحنفلا عيد والبوميش فردين فانسنت هاي waxaan gudagalaynaa barnaamijkeena oo dhowr qaybood ka koobnaan doona laakiin waxaan isku dayi doonaa mar walba inaan ka eegno muhiimadda annaga oo qof walba u ogolaanayno in waqtigiisa aan wax uga reebno si uu meeshii uu ka yimid uu aado jadwalkeena intii yara wada joogno wuxuu noogu taxnaan doonaa sida aan ugu talagalnay ilaahayna waxaan ka baryanaa sida ugu wanaagsan inuu nagu soo gabagabeeyo balse inta aanan gudagelin munaasabada iyo muhiimadda aan isugu imaanay waxaan jeclahay marka hore inaan ku daafurno aayadaha quraanka kariimka waxaana noo soo jeedinayo xasan ismaaciil bismillahir rahmanir rahim suratun anzalnaha wa farradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم quraanka kariimka inoogu daafuray madasheena sida u jeedaan waa xafladda Somali 5 Stars Asia sida hadaan hordhac guud idin siiyo xafladan waxaa qabanaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo Somali 5 Star la baxay Somali 5 Star hadii ay si kale kugu sheegan dhalinyarada waxay ka kala yimaadeen shanta Soomaaliyeed Soomaaliya originally shanta Soomaaliyeed ayay ka kala yimaadeen muhiimadda uu groupkan u asaasan yahay waxa ka hadli doona gudoomiyaha oo goordhow aan ku dubi doonaa balse xafladan waxa ay hordhac u tahay xaflado badan oo aan qorsheynay inaan ku qabanno Asia anagoo hadda u soo hormarinay wadanka Bangladesh waxaan jeclahay markan inaan warbixin ka badan groupka inuu nasiiyo gudoomiyaha groupka Somali 5 Stars mudane Muqtaar Ali Cilmi oo ku sugan wadanka Germany asaga ayaa si online ahaan noo siin doona marka waxaan jeclahay dhinaca farsamadana u gudbiyo oo aan ka dhageysano muhiimadda groupka iyo waliba waxa uu taagan yahay ka bilaabantay 5 Stars oo ah shantii xidigood ama shantii Soomaaliyeed muddo kadib waxaan maaragtay isku raacnay maadaama ay jiraan shirkado ama waxyaabo badan oo magacaanka 5 Star hore loo oran jiray inaan noqono dhalinyartii Somali 5 Star ama noqono hogaanka ama new generation ka cusub ee Soomaaliya soo baxaysa taasina maaragtay waxaan isku waafaqnay Somali 5 Star inay tahay shantii Soomaaliyeed runaaantiina waxaa ku midoobay dhalinyaro fara badan oo maaragtay fikirkooda saliimka isku darsaday runaaantii waxay mar walba maaragtay soo saaraan ama ay diyaar u yihiin qof walba oo Soomaaliya oo talent leh aan abdulsa u taqaanaan soo kaas oo ah bulshada ku dhex farsoon mar walba waxaan taaganahay sidii aan maaragtay Soomaali aan ognahay hadaynahay waxaan ay dad diintu ay midayso dhaqanku midayo luqaddu midayso waxa walba midayan laakiin waqtiyadan dambe Soomaali waxay noqotay kuwa sii kala suulaya soo anagoo mar walba ka fog siyaasadda haddana waxaan mar walba si fikriyana isku daynaa inaan iskugu soo dhaweyno dhalinyarta Soomaaliyeed kuwa maanta jira iyo kuwa berri ay iman doonaba insha Allah
run ahaantii waxyaabahan maaragtay maanta oo dhanoo isticmaalno hubkeeda ugu weyn waxa weeye waa social mediaha run ahaantii waqtigan dambena waxa weeye hubka adduunka la isticmaalo waa media so waxa weeye bara page baan leenahay so Facebook page baan leenahay sida Instagram iyo Snapchat so YouTube so mar walba waxaan isku daynaa inaan maaragtay halkaa bulshada ka dhiirigelino haddii aan keenna programyo so waxaa jira bar messenger aan ku kulanno kaasina maaragtay aan mar walba ku kala warqaadano so waxqabadyada run ahaantii noo qabto marka kaarra la qiimin jiray dhibaatada jirta waxay tahay NGO ma la dhahayo haloo dhiibo macallimiinta xaafadda ugu caansan ama haloo dhiibo nimanka oo aqoonyahanada xaafadda lama dhahayo waxaa loo dhiibaa ninka xaafadda ugu halisan dadka dunta u galay ninkaas oo in loo dhiibo aqoon maayo irbaabki inoo isticmaala oo meesha horta wuxuu ka bilaabaa kaararkaa la qaybina meel dhan NGO waa ogtaa waxaa lagu qaybinaa iskool Djibouti lagu qaybinaa in lagu dhaho 80 kaar hore loo sii bixiyay maxaa laga bixiyay marka dhibaatay jirta waxay tahay markii qof dhalinyar oo wato horta dhalinyarta bulshada qayb ku leedahay wax qabadkooda balse dhalinyarta waxay doonta qortaa waxay tahay koogu hore magacooda dhulka lala galay waa xagga Arsenal noo qariib marka taas iyadoo ay jirta dana barnaamijyada kale dhibaatada kasii jirta waxay tahay iyagoo magacooda lagu dheyn haddana kaaga sii dara maanta hadday urur ahaan isku aasaan wax qabad ilaa dhalinyar waa ogtahay maanta intay tala ka booda geedka booda maan dhihi jirin sababtoo wax kasta inay ka mira dhalin waayo maanta Soomaali ahaan markii loo dowladdeena xitaa xagga dhalinyarta marka doorka dhalinyarada ee bulshada ka qaadanaysa sababta dhalinyarada waa quwad dheeriya oo bini'aadamku la siiyo xilliga uu xaaladda dhalinyarnimo ku jiro waa laf dhabarta la hubo ee uu wadanku yeelan karo waa keedka dhaqaale oo durbadiiba laga miro dhalin karo waa xilli uu qofka dhalinyarku ahay qaban karo wax waliba uu ku hamiyo haddii uu yimaado iyo waxqab dhab ah taas maskuraan uu ku gaadhi karo hamigiisa iyo hankiisa uu lahay marka Somali 5 star gudoomiyeeda uu hadlay uu noo sheegay xaalad jirto BD-na maanta alxamdulillah wax anaga ganacsato hadday ganacsato qof oo yaanta waa inuu jaamacad ku xiriiro sawad ogna ma anaga bacalayaal meesha noogu furna aniyo marka dadku ma taqaan ma faham marka qofkaas oo jaamacad dhigto waxa la soo xiriirayo dad oo dalka amal leh ganacsatada waaweyn inta hadani ugu horeey Muqdisho waa dadka oo tareebiyaan amal ama adig meelaha waaweyn u furan ganacsi sida oo kii ku dhoofistaan konteynarada amal oo lacagta barjumlada bixiyaan marka saasay taano waxa anaga dad badan markii la fiiriyo dad wax wada bartaan inta dhaqtarka iyo caafimaadku ma dadeen la saar marka anaga waxa naga rabo taas markastana in wax kasta la fiiriyo waa muhiim maadaama anigu u hadlayo ardayda Soomaaliyeed ee Bangladesh joogan horta ardayda Soomaaliyeed ee Bangladesh joogan horta dhibaatada neesata waxay tahay xagga Soomaaliya anaga badan dhaqaaqaas ku bari runtaana fiican inta aan soo arkay أنا أقدر وابحث دت جراشي هذا أو بحنا صلاة توجيران بدنا دلائرت مسترك خليجوس أما دلائرت أو هير كسرقات مركل فيري بدنا ما تنين أو مفكر كرسوم كتات لقيتها أنا كم إذا دو أو أصوم مين كهذا ليدو منين كم وحوه يستا مغريشين كخلت باسبورد من الصومالي وقفان أنا كم بقولش كم هذا مركوني خالي كان أنا بقولش كم هذا واي وعسكول حريرنا إن أنا كهال بالكواريمان حاجة ما أنت مركز Soomaaliya الله وعنا وقدر نحقق بدن أبدأ السودان كي ما درونت أنا فيها كسر بالله عبد الرحمن وشكر قدومية مركا أنا بدنا نجرب وحيد عمد أنا معها هنا أنا أبدأ السودان أحمل إنه ما أنت أبدأ مصر نجمو في أنا أبدأ ماليزيا نجمو في أنا أبدأ أو ننكس توقع صوبرت نجمو في أنا لكن أبدأ السودان بدنا حتى ونرجع عن سار ونرجع عن بيري المركز الدولة الصومالية نجم ملك السنة أنا صومالي أنا مركز أي جرتو أنا محل الربا مادام أنا قدومي هنا على الصنع أنت كلا قدوميات جامعات الأخلاق يعني بدية ضد أقوياء المجرد أنت لما نكون كان هنا فشل وضنا قرنتا فيها إن كيس ديالله أرد البنجال اسمه مرتان impossible ما نكون ده إبر أرد الإبر نحن عند تكون نقول كيف وحنا قناة شني طول أنت كلا مركز محل الربا إن السمعات بسوي جدنا أرد البنجال اسمه فشل ما هو صارته مثلا أنا ما أنت مركي أو مال أتبو أما ضلكي Soomaaliya أو لابتو وحياة دش أسارنا وحيتها إن أكو صوتات البنجالس وحكي صبر وآي سامولان براتكي وبنجاليش مستكيل وبنجاليش
marka halaha siniska ana oo kufaana ila meelki istaaga wixii sumcad u taatay Bangladesh-nan ka wada imaadeen hadda inkiis wax qabto si wax oo qabto marka taasna waa dhiirigelin oo dhiirigelinayo halaha ay warfadhisay Bangladesh masqari baadinta isku wajirno wax qabadkeena inuu torob u bato hadda inkiis anaga maanta marka hadda dalka la tago dhibaatooyinka jirta waxay tahay si toos maanta wasaaradda Bangladesh taasoo ay fiicanta waxaan ugu fiican meel shahaadooyin la geysto toos dawladda loogu shaqo galo shahaado la geysana ama lagu soo siiyay ama lagu soo siin ay jirto aniga ma jirto meel hadda shahaado inta kan ay geysanayo balse xoolo dhaqaaq dhanka cidda taa ka helnayo dhanka si dhan wax noogu soo galaan waa laga yaabaa inaan ku shaqeyn marka ku shaqeyno muxumed maadaama anaga waxaan rabnaa in case maadaama xagga dawladda wax keenay inaan anaga sameyno dhalinyar wax qabad leh haddii maanta example ahaan keed dhaqaale ah yeelano ardayda Bangladesh-nan oo keedkaas isku darsano oo wixii erge dawladda wax naga maqan ah hadal gaarsiino waa la gaarsiin karaa hadda Bangladesh-nan way qaad wasaaradda waxbarashada la gaarsiin ardayda inay waxyaabo badan u baahan tahay waxaan hadda isku day wax kasta waa sameyn karaa taasna waa iga qaata waa dhiirigelin aad iyo aad ugu wanaagsantahay xafladan quruxda badanna waxaa cawad iskale dhalinyartii Somali 5 Star oo iyaga u taagan sidii la sheegay wax qabad dhan kasta ay noqoto aad iyo aad ugu wanaagsantahay كيس هذا ما سيهاي خطبتيسا وكذا هاللي حوش قبل قابضة يو دبك لقى صور مري رنانتينا وحواي مركا عربتي ضد العيارة مركا عربتينا وهكذا دعسيد ويقوى أفغانستان فكر هان مركا وحكوسو حسوس تشيكا أو هذا كورا وحال وذي بيجي كذا وحال هذا كورا قايدته مقايد مركو تجمرك مقايدها عند هذا حالة عسل نقطة واركتين مركي شال وكان شال سكرت ولا قصور رهبا سكرت صوت الله قصور رهبا وحوا تذكر مرحلة بيكون الدوي قفة حلقة إنه سكر قبوا وكلام مركا وحالي الشاي كانوا ده مركا وحالة الشاي والله كان سكرت والله كان مركو هو هاي كوب الشاي ما قابل $1 سكرت ما قابل العقل عام ويلا مركو هو ده كوب الشاي وقادنا سكرت الجوال وسوش محافظة وقادنا مركا الشاي ده مستورة مركا أنا قد يرى وحول وحوم يعني بروفيت يكون جوان مركا أول شيء اسمه أنت فكرة رنا أسعاونا أو حسن قبلنا قفل بركو حكر فيرنا حاجة بروفيت لكن كمان فيرنا قف كان إنه ما أنت إسحاقام يستيقظ مركا وحان رجينا يا حفلتنا كذب إن فكر كأولنا أن نلقى الدمتان كلية مركا وحارنا كلية إن حلت تروين كين إن نقول دير الجلسة إن نقرب استكتان ماشي وين أو بلوشة نقبل دير كرنا وماشي وإحنا قبرت مركا سلاس أنا نقول دمتا هوشنا وحنفلا يا مركا إن أقول بريه يعني سيبو ذكري كرنا وحنجعلها من مدينة مسؤول دوية دمان مرتشرفتا نرجوكتا قالها قوياش الجامعة لها أرداد الصومالي ده وحكا برتان حنجعلها مركان إن كسو دوية ميكروفونكا صادق برها الضوء مقلايو oo kamid ah xubnaha ardayda jaaliyada Jubbaland ee ku sugan wadanka Bangladesh saadaq soo waad ogtihiin oo wadanka intaasoo urur intaasoo baalkii ka samaysan wax macnaana ma sameynayaan laakiin urur dhalinyaro oo u abaabulan si qaranimo oo kooxaysi iyo shakhsi jeclaysi midna uusan ku jirin isla markaana lagu caawinayo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo dhiban waxaad ogtihiin dhalinyaro yaryar oo hal abuur leh oo markaan aan awoodi karin waxyaalaha qaar inay sameeyaan haddii marka barnaamijkaas oo kale aad aragto inaad dhalinyaradaas aad dhiirigeliso oo aad gacan qabato wixii aad ku awoodo inaad qayb ka qaadataa lagaaga baahan yahay marka waxaan leeyahay 5 star shaqada adag baad qabateen إن شاء الله وأنا فوق رأسين دونا دمانتي محاتين أكون يهلو كلية وحالة كهرباء أنا بوزيتيف كي وحالها ونكسن أتكون بيري كتان إن أتكون بيرسان ولا لها مضاش أن يكسو عزومي أدي بدون ما حسنتين مرة وإنا قبلت كل إرادة ضمن بعيد البيع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما سنيه سادة برة وكمل حبنا أرضية جالية جبلان. مناسبة ديني ونوسي سعون دونتا وحنجعلها هنا من بدوية المسؤولين مناسبة نجلس وقيب كشيء مركن وحنجعلها هنا أوعو
mikrofoonkan aan kusoo dhaweeyo xubnaha martida ee nooga yimid Chiticon waxaana xubnahaas magacooda ku hadli doona Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم أرتب ورّا وحنا يرصح أرجع ويساعد كي قال لاسي يفتدينا برامج كمرتدى كتب جدكم أنت بدك يا قانا أنا غير كأي مركب عفلا حاجة قرآن خير قلنا عفلا مركب على كي هذا بسيط أنا مجا يسأل أنت ليش هو محمد عبد الله وحنا أصحاب جدكم ضدك markii hore joogtay iyo baaj soo dhameeyay laakiin hadda kan digana wajina quruxda dhamaantiin aad dirs la ah marka runtii waa maasi waa qaar la siiyo barnaamijkan caawa isku nimaanay Somali 5 star runtii waa barnaamij qiimo badan marka fiiris magaca Somali 5 star oo ka turjumaya shanta Soomaaliyeed si gudoomiyaha barnaamijku ku sheegay ka dhigaysanay marka dhalinyaro ahaan marka laga hadlo barnaamijka Soomaali iyo dhalinyaro waa dareemi karta farqiga harto meeshu maraay maanta oo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta caqabadaha haysta waxaan soo koobi karnaa maxaa yeelay magaca dhalinyarada wuxuu noqday magac la isticmaalo oo kaarka loo marsado mar walba qof kaarka la marsado oo noqdo badan nin walba siyaasi markuu soo istaago mikrofoonka ama uu siyaasadda u tartamayo wuxuu sheegay inuu dhalinyaro wax qabanayo laakiin markii runta timaado waa under zero sinta banta badan marka runtii waxa la walaalaha Soomaaliyeed barnaamijkan gartay inay sameeyaan 5 star waa maasiin waana wax ku dayasho mudan sida ognahay markii horeba Soomaaliya dhalinyaro xarumay gaadsiday oo 13 dhalinyaro Soomaaliyeed soo leegadii keentay xarumadaas maanta dadka inta badan ay ku noolaanayaan marka waxa maanta ka bixi kara Soomaalida dhibaatadana inta badan waa soo dhalinyarada maxaa yeelay dadku waxay dhahan 75% oo 65% waa dhalinyaro dadka Soomaalida ee dalka jooga marka intaan wax baratay Bangladesh joogta ama wadamada kale joogta runtii waajib gooni ah saaran maxaa yeelay qofka Soomaaliga ee dalkii jooga dhalinyarada waxa laga yaabaa inuu facility haysto kaleeto inuu saxiisan marka qof walba waxa waajib ku ah aan noqdaan gudoomiyaasha jaamacadaha halkan jooga iyo jaaliyadaha magacaabay iyo gudoomiyaasha kala dhamaantood inay ogaadaan wararta mas'uuliyadda koowaad oo saaran waxa waaye waa taa mid koowaad talabaad waxa waaye dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada qof uu walaalkiisa uu ka tabarruu yahay ama uu caawin karo taa laga bilaabo taas muhiim ah boqolkiiba in xalfadaha inta badan waxa arkaa lacag xalfadaha waxa lagu qarshigay door lacag oo lacag yar lagu qarshigay taasoo jirto dhalinyarada Soomaaliyeed oo Bangladesh joogta oo la school fee iskaga bixiyaan qaarkood soo qalday leeyahay jaamacadda scholarship la geeyay imaada markii yimaadani way lacagtii jaamacadda iskaga bixiyaan jaamacadda yiraahdeen scholarship ma ahna waa lacag marka dhalinyarada Bangladesh joogta inta badan waxaan kula talin lahaa inay dib isku laabtaan ay ogaadaan dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed joogta ee jeebkooda liito hay'ad qof dibadda yimaada hadduu jeebkiisa ku jiro runtii waxaan baran karo waa adag boqolkiiba waa adag marka taa ka fikra si loo midnimada iyo magacaas weyn aan hoosta dhamaanteen oo magac qurux badan runtii ma sha Allah oo na xusuusi doona in sidii la ahaan jiray lagu noqdo runtii dadku waxay ka sheekayaan mar walba Soomaali barasamaadkeedii iyo sheekadaas inuu kiistaana barasamaad arki laakiin barasamaadka marka qof walba ku sheekaya hooyada ama aabaha ama dadkii hore ku sheekaya waxay ku sheegaan wax qurux badan sidaas tarafteeda ayada waxa ka qaldanaa maanta wax baa qaldan stiil wili waxa qaldan waxa saxi karana wax waaye dad Soomaaliyeed oo aqoon leh oo cilmi leh oo caawiya oo Soomaaliyada ay ka dhibtaay in isku tagaan dadkaasna waxa aaminsanaa waa wiilasha quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan oo midooba oo fakara heerkii maanta ay joogaan macnaha daa ogtiinba Soomaalida dawladda heerar soo martay maanta waxaan dhigi karnaa heer bilow joogta oo macquul hore socon kara oo dadku taageersiin inta badan masna wax baa qaldan waxa sixi karana wax waaye dhalinyaro maxaa yeelay dadku waxay mar walba mustaqbalka dadka ah oo hoggaanka mustaqbalka waa dhalinyarada iyo maalmo dadka yiraahdo saa ogtiin aniga markay soo soo waxa lagu yiraahdaa taa hoggaanka Brita taa qof walba hoggaanka Brita taa mana arag runtii dhalinyaro ah oo heerkii uu hoggaanka dalka hoggaamiyay wali waan aragnay maxaa yeelay qof walba inta ugu badan waxa waaye afarta waxay ka badan ku qoranba dastuur ku qoranba inuu xil qaban karo wax ka sareeyo marka waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ha bilaabaan wax
muujinaya soomaalinimada iyo isku xirnaanta iyo isjaceylka waxaa badatay baryaha dambe waxaa la dhahaayo waa urur hebel waa ree hebel iyo hiblaayo waa ree hebel iyo xisbi hebelu ka mid yahay iyo saaxiibkeeda wuxuu ka dhawaysan yahay waxaan kaga mahad celinaynaa komitiyada muhiimka ah ee uu bixiyo khudbadiisa ee ku saabsaneed sidoo kale hore intaa xafladda bilaabina waa ka cudur daartay meelaha qaarkood inay gacanta iga taftamaan laga yaabaa hala iga dulqaato meelahaas kale waxaana filayaa waxaan sii gudagalaynaa munaasabadeena waxaan jeclahay markaan inaan soo dhaweeyo oo mikrofoonkaan ku soo dhaweeyo gudoomiye ku-xigeenka ardayda jaamacadda Stanford markaan waxaan u galaynaa jaamacadaha Gurxan Cabdisamed Gurxan soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم سفاع الله يبغى سوما دمانتين كل يوم حنكون سلامي يا غفل بقى مقامك قروح البدن أبو وجيد قروح البدن وكم التالي حفلته أبو لغو شرفة إن لغو مرتقلي كل مجيء وعبد عبد الرحمن علي وحنا هاي قدوميها كوحجين كجامعة ستانفورد يونيفرسيتي أوف بنغلاديش وحنا هاي mid ka mid ah ardayda waxay la barato kulli waxa waa shakhsiyad kan meesha ku jooga qof walba wuxuu joogaa arday u maleeyo inuu ugu jiro qof aan arday ahayn kulli waxaan faasilo mahad celinayaa ardaydii soo qaabisay xafladda sida aadka u quruxda badan leh ee Somali 5 Star Group waxaan leeyahay hambalyo kun iyo ku jir hambalyo kulli waxa tihiin dhalinyaro aad u firfircoon saan rajeynayo inkiina aan ka arkaba kulli waxaan leeyahay wada qurux badan baa wadada ku hisiinay hore u sii qaada sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa kulli waxa meesha joogo maqaamo aad u waaweyn haday noqon lahayd gudoomiyaha ugu sareeya ardayda wadanka Bangladesh Masar Cabduqaadir iyo walaalkay Cabduqaadir oo asagana waa laba sami iyo oo ah mid ka mid ah jaalidaha Soomaalida ee ku dhaqan wadanka Bangladesh ee Jubaland asagana waxaan leeyahay soo dhaw sidoo kale waxa awada martida ka mid ah walaalkay gudoomiyaha jaamacadda Stanford University oo Cabdicasiis Samaala kulli waxaan leeyahay soo dhawaada intaan magacooda gaari waayeen waxaan leeyahay saaxiibayaal aad baan idin soo dhaweynayaa kulli xafladana waxa hore u furay mid ka mid ah baalkii gudoomiyaasha qabanqaabada kulli hadal dheer ma sii dhigi karo ma ihi qof public speaker ah sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa oo dheegi qof sii qabanaya gudoomiyaha jaamacadda Bangladesh University Mr. Rafiqi dhamaantii waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada walaal aad baan u mahadsantihiin kun tabba insha Allah
waxaan rabaa markaan inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha ardayda jaamacadda Davodil Cabdicasiis Samaale iyo soo dhaweeyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا uu sheegay Mr. Sharif magacayga waa Days. Waxaan nahay ardayda kulliyadda Journalism and Mass Communication. aad baan u mahadsantihiin inaan horta soo hor istaago oo aan caawa wax yar imeeraa. aadna ugu faraxsanahay in dhalinyaro ay isku tagto oo ay soo agaasimaan xafladan quruxda badan. بلو أنا أوجد ضد بدن إن أكسر قلب بلن لكن هذانا سوماليدا واحد على وحي حلو وكوي عن وحي من سنة بنعمل الوجيه كان كابسولة مركا واحد المسنة حفل لقبته تيجي من مالي والناس يعني مرة هذه جروب يرى يسكت كان أو قبتين واحد ففالو ضدك بريتو للمستقبل كذا ميرون وحكم مريض دونا هذه أي نقطة واحد بوزيتيف ضدك هرب واحد لو بيصير شيء marka waxa aan rabay in waxyaabo yar oo inaga dhexdeena inoo ah maadaama ardayna ay sida waqtigeena oo kale waxbarashada waxyaabo saas oo kale inaan ii sheego kulli qofka dhalinyarada waxa ugu wanaagsan ee uu leeyahay ilaahay siiyay waa waqtiga haddii aadan ka faa'iideysanna in uu gooyo waa sax oo dee uu ka faa'iideysanaya haddii aadan ka faa'iideysan innagoo ka imaanay meelo kala duwan darafyo kala duwan Bangladesh waxay tahay meesha kaliya ee la isku wada jiro ee aanay dadku lahayn wax qabiil ah qof kasta qof la noolaan karo haddii wax yar Suudaan baa hadda wax laga sheegay waxay la joogaa Maxamed Faatax Suudaanka uu og yahay asaga sabrid bal kaliya meel kasta hadda haddii aad gabadh aragto macnaha xaggan nin la socota magaalo kale ka yimid gabadhana waa la diraa asagana waa la dilaa marka inaga waxaas ma naqaanin oo dadku ma kala xidhna waxa keenaysa ma umaleynaya dhaqankan ka jiray iyo wacyigeed marka Bangladesh waxa oran karaa waxa ugu wanaagsan ee bini'aadan ee la barto waa qof bini'aadan marka dadku in aanay kala xidhnaan ay isdhex galaan la isku xidhnaado integration loo sameeyo haddii wax yar oo waqti yar ay soo qaadano oo kale hadda tusaale ahaan Barack Obama qof waliba wuxuu oranayaa haddii la raaxo maxaad noqonaysaa Barack Obama xilka markuu tegay 55 jir buu ahaa Donald Trump xilka markuu qabtay 70 buu ahaa labaduba waqtigooda u noolay Soomaa California iyo New York 3 saacadood bay kala horeeyaan iyagoo loo eegay waqti goboleedka time zone macnaheedu ma ahan in ay kala duwan yihiin isku hal meel bay ku yaalaan waa ay kala duwan yihiin qof baa jira ku guursan doona 20 jir ilmo ku heli doona 10 sano kadib qof baa 30 sano gabadh ku guursan doona heli doona hal sano ilmo kadib ayaga waqtiga uun bay ku xidhan tahay qofku sidoo uu helo marka in inaga waqtiga laga faa'iideysano waxbarasho oo halkan ay noo soo direen qof kasta uu waxbarashadiisa ugu xisaabtamo laba mid in la sameeyo qofku de jaamacad haddii uu dhiganayo hadday qaali tahay haddii kaleba in asaga ay lacag uga soo noqoto uu kari karaa waana la heli karaa taasoo ku xidhnaanaysa CGPA-ga uu keensado macquul maaha jaamacad ma dhiganaya lacagna waan bixinaya waxbana iga soo geli maayeen marka waxyaabahaas in lagu taxadaro oo waxbarashada laga warhayo oo dee qofku laba mid sidii Soomaaliya ay noqon qofkii Soomaaliya joogay baas oo gareerkii ka gudub yeelays caay oo lagu oranin hebel waa dibad gaab u gashay halka hadda timaadana 24 hours iska isticmaal fadkaaga hadhow marka timaadana imtixaankii waxa la iska jiid karay marka annaga de kulli jaamacad oo dhan waa isku mid baa u maleynaya
haddii hal maado lagugu qabto ama aad gashto in $100 ganaaxa lacag lagaa qaado maadadiina aad dib ugu celisay marka culays bay ku tahay nin asagu lacag rabay inuu shaqaysto haddana dee saas ku dhacay marka taas waxaa keenaya waqtiga qofka oo bini'aadankaasi uga faa'iideyn lahaa ama uu xaqii lahaa ama uu ku baasi lahaa marka qofkii haddii uu waqtigiisa ka faa'iidaysto 100% waa guulaysan doonaa talabaad ee kale waxay tahay in aan u mahad celino dhalinyarada 36 qof oo umaleeyay ka koobaysan ku arkay bannerka iskuursatay isku tagtay groupka noqotay meel ku midoobay kulli iyagu u dhow waxay isugu tageen in ay sameeyaan wax wanaagsan oo ifafaalo waa dadyeema dambe iyo dadka hadda like inagoo kale hadda markii laynaga eego bini'aadamtinimadeena 3 marxaladood bay noqonaysaa in aan nahayn beertii shalayto oo hooyadeen iyo aabaheen haddaanay united samaynin oo isku imaanin innaga maynaan beeranina abuur maynaan samaynin talabaadna waxaan noqonay ubixii oo dadka usoo baxayay hadhowna waxay noqon doonaa midhihii beritoole oo dheeftooda la heli lahaa saddexdaas haddii aan waxba ka jirin dunidan dhanba may socoteen marka waxaan aaminsanahay qofku sida uu u nool yahay cunfigiisa inuu u noolaado oo asagu isku daberi karo dhalinyaradana aan bogaadino ku dayano inaguna aan gurubyo samayno hadda ka horba markii cabdiqaadir gudoomiyaha ardayda soomaaliyeed la dooranayba markaas aniga unbaa dee ma sheegan karo guusha walaalaha laakiin aniga unbaa ka dambeeyey waxaan idhi gudoomiye ay doorano annagoo meel fadhin unbaa waxaa la yidhi 2014 baa la isku diyey 15 baa la isku diyey 16 baa la isku diyey marka waxaan idhi dadkan maxaad kaga duwan tihiin dadkan caqliga keeni waaya soo ma aha isku taga waa isku tagnay nidaam baan keenay ahaa in jaamacad kasta gudoomiyaasheeda aan shirno waan shirnay makhaayad baan isla fadhiisanay macnaha waxaa la iiga shakiyey annaga reer daafurlaan innaba aan rabna xilka oo aan wax ka daynin markaa meel intaas ugu keenay baan kitaab gacanta saaray waxaan dhahay warniyow anu xilma urbeeni mana rabo laakiin waxa aan rabnaa in wax wanaagsan aan qabsano bas shakigii maalintii buu raggii kale ka baxay sidii baa wax lagu qabtay sidii baa gudoomiye lagu doortay haddii aan la isku tanaasulin oo aan wax la isku soo qabanayna waxba may hagaagin ilaa maalinkaas marka waxaa loo baahanyay gudoomiyaasha iyo inay la shaqeeyaan ururkan soona dhaweeyaan ardayda kale ee waddanka ku cusubna loo sheego oo wax laga dhaadhiciyo dadyowga kale ee martida inoo ahna sidooda loo ixtiraamo oo la tixgeliyo dad badan oo dee wax ka khaldayn aad marayso in ay soomaaliya joogaan oo murmayo caytamayo dagaalamayo waa jiraan marka dadyowgaasna in itiga ay ku noolaanayaan wax loogu sheego oo la idhaahdo sidan hebel wuxuu sameeyay hataa ha ku caaya adigaa ku doonabay in yaruu gaarsiiya haddii ay ka dhigo idinkana sida aad dhegeysaysaan ku mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عبدالعزيز سمالة وما دعلنا وقت جيس قالجا يقولوا فرصة ونوسية يقول بدي سعادة وما دعلنا وعن جعلنا وقت دنبنا ويتعينا سوق وكوبنا قد بدها مركان وحن جعلها هنا هو يوميها أردينا جامعة بنغاليش هيلث ساينس وضنا محمد رفيق سلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inta uu gudageli inta soo kacay gudoomiyaha fariido soo diiway oo magaca jaamacad in la qalday Bangladesh University of Health Science insha Allah magaca saas waaye salaam ya dhamaan asxaabta ka soo qalbiyaasha barnaamijka iyo dadkii soo abaabulay barnaamijkan quruxda badan waqti ku bixiyay midda kale waxaan salaamayaa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed Bangladesh Cabdiqaadir iyo qof walba oo maqaamka meesha ku fadhiyo waqti badan ma jiro haddaan u gudo galo barnaamijka ururkan Soomaali 5 star xaqiiqatan waxa waaye waa urur dayasho mudan oo waliba waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah inay meelo kala duwan joogaan annaga Bangladesh waxa laga yaabaa muddo aan joogaa hadda 4 sano iyo 5 sano way adag tahay in urur la sameeyo oo meel isku keeno waa la ogaadaa gudoomiyaha hadda sheegay dhibaatada laga maray markii la dhisay guddiga laakiin urur caadi ah in la sameeyo waliba anagoo hal meel waxa waa dhibaato badan laga maray waa barnaamij uu mahad celinaya asxaabtan meelaha kala duwan joogo kala fikirka ah oo haddana isku imaaday muhiimadda waxa waa qofka hadduu leeyahay hadaf uu gool leeyahay waa gaaraya macnaha dad kala duwan meesha rabana ka soo jeedaan midda kale waxaa jirta asxaab badan oo Suudaan ku rafatay Suudaan xaqiiqatan dadka badan waxay ka sheegaan dhanka negative ka sheegaan bas positive leeyihiin ana ku soo noolaa muddo sanadii bara
waxaa laga yaabaa dadka dhanka qabaa'ilka inay fiiriyaan ururo badan oo islaamiya sida ururadan oo kale ka dhisan waxyaabo badan ilaa hadda ururo ka tirsanaa jiro oo shaqeeyo oo dadka caawiyo iskuulo caawiyo laakiin dadka badanaa waxay soo qaataa markii qof la soo dhaweynayo oo qabiil lagu soo dhaweeyo ma aha dhankaas bis in laga sheego dhan positive oo badan ay leeyihiin soomaalida meesha kusoo badato positive iyo negative labaduba waa leeyihiin midda labaad aan ku daray waxay tahay horta inaan u mahadceliyo Mr. Shariif oo barnaamijkan nagu casuumay insha Allah wixii talo iyo tusaaleyn oo ku dhiirigelinayna dhanka social media hadda usoo laabto waxaan rabaa inuu sheegay dhowr qof inay ku jirto social media maalmaha dambe waxyaabo badan looga faa'iideystaa مثال ير هذا قلبت أعرف فيسبوك كأركي نين وحاجة يقول لقى هستو أو قضية أو رجيم أنا أو أنا أسر كيس يمنه قولي من دلقة سنين دولة كميدا كيستو يككريستي حاجة ويسفهم واي نينكي ما يلعب بدون الدولة صومر حقيقة إلا سي جديدة إلا محكمة ما هو صومر وهو اللغة واي كل بيرو صوته فيسبوك وصادق وهو يقول لي سوى نفسه وريتي شلاه نجا صوت أحسن والله يعني ممكن يسكر تاجن وحفظينا وهو والسوشيال ميديا معنا من بدأ أوصل قدرنا وحتى السوشيال ميديا وحياه بدنا إنه فضيه أصحابنا إن شاء الله دو سيد كتشو ونلك عشان دو كلك عشان دونا وحياه بدنا بروبلم بدنا جردنا حموسنا يجروح له أرويو تبى توي لجمرة إن شاء الله نجع ويا محور البو كصابسن إيو إن سنكو كان حرفدا بس إني أرضي Soomaaliyeed meel walba ugu qabtaan barnaamij aqoon kororsi ama aqoon soo ilaarsi ama wax walba ardayda bulshada ugu keenaysan u qabtaan annagana insha Allah waa ku dhiirigelinayna garabkooda nahay oo fiican ay hayaan insha Allah Ilaahay u fududeeyo annagana ku daysado oo Allah naga dhigo insha Allah wada salaam dhamaantiin salaam alaykum mudana maxamed fi hada ma santahay wali cudurdaarkii waa wada alayga raali ahaa gordhow riwaayad yar aan idin soo gudbin doonaa iyo barnaamij yar oo isaga tijaabi nasiibka dhamaantiin aad inta nasiib u yeelatay awal marin ay ku heli doonaan laakiin waxaa jirto khudbadii Abdulcasiis Samaale sheekayr aan ku soo xasuustay macnaha rabaa inaan kaga sheekay hal hadda koor gabar gabdhaha moogtahay waxaa waaye gabdhayna maasha Allah aad u fiican yihiin maseerka baalkan waxaa waaye dhankooda u badan yahay marka waxaa la leeyahay gabar hadda koor aad u maseer badan waxaa la leeyahay xaajigeeda habeenkii markuu seexdo oo qarow maanta dhan uu qarwa laakiin wuxuu ku hadlayaa lama fahmayo macnaha markii dhan marka doctor uu tagto waxay tiri doctor xaajigeygu waxaan u siin waxa u baahanahay inaad ii daaweysid marka sidee loo hayaa oo ku dhahay doctor marka wuxuu ku dhahday habeenkii wuu daldalmayaa laakiin wuxuu ku hadlayaa mana fahmayo marka doctorku wuxuu dhahay waxaan kuu qorayaa daawo stress ahaaye stresska ka yareyso oo ka dejiso si macnaha asagana kugu caafimaada ma yeetirno waxaa rabaa daawo fasiix iiga dhigaysa macnaha waxaan uu ku hadlaysaa u maqlaan rabaa marka ayadoo macnaha ka raadinaysa in macnaha oo xaajiid kale ay jirto waayahay waxaan jeclahay markaan qaybihii gabagabada ku dhownahay khudbadaha waxaan jeclahay markaan inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha ardayda jaaliyadda Jubbaland mudane Saadaq mudane Abdulhab سماها أبو قادر عفوا أبو قادر سوري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أتسكر ملكي كواد أنا ورنبات قبل عفمات قبل نسكوك عيتيني مركا لواد حابات دادك عزومات نوفيي نكسودويي وقتي قاليا نقع عزومي مركز لحد مرتشرت كسوق بشيء أجيبتي وقتي قول أصول بيجي سي وقع قاتل حلا وناسين هالكان رواية حسلامة دمان مرتشرت بدية بدمياشة عمود أبلاد لما دكينا كسوق بدمياشة حليا أي مركور وحوي وفكر أد مهيسن رب العوي waxaan moodaa in Soomaalida bariyahan dambe aaminaad iyo sidii in Soomaali isku tagtay inay isku aaminaan sida uu fudud isku aaminaan noqotay in qabiil iyo kan kugu dhowina aamin karto iyo kan walaalka laakiin inta Soomaali oo Soomaali 5 star la baxday iyo meel kala duwan joogto sida fudud isku aamintay in bulshada Soomaaliyeed oo dhibaataysan iyo ama fikir waxay maskaxda guuxa inuu soo gudbiyaan
maanta uma malaynayo qof waliba bilaadan fikrigi waxbaa ku jira laakiinse wuxuu u baahan yahay qof la buushgareeya oo la taageera yidhaahdaa hawshaas way soconaysaa hadalka ku siin badin maayo waxaa weye waqtiga waxaa moodaa inuu dhacay howlo badan ay sugayaan guddiga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii hadal ahaa hore loo hadlay iyo wixii waana ah dhallinyarnimada waxtarkeeda iyo waxyaalaha tartade cid weliba way ogsoon tahay halkaanna waa lagu hadlay markaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay mudan abdiqaadir aada u mahadsan tahay goordho waxaan xafladda noo soo gabagabeyn doona guddoomiyaha ardayda Bangladesh ayaa noo soo gabagabeyn doona sidoo kale waxaa fursadaha siin doonaa dhalinyarada kale meesha joogta inaan iyagana commentskooda aan dhegaysano oo ku saabsan Somali 5 Star iyo waxa aragti aanay ku biirinayaan sidoo kale qaybtii tijaabi nasiibkaada ah oo abaalmarinadan waa u guda geli doonaa iyadoo gabagabadan aan casho aadi doono ilaahay hadduu ka raali noqdo balse markan waxaan u guda geli doonaa riwaayad yar oo ka turjumaysa Somali 5 Stars riwaayadan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo sameeyey Kaysa Dalab oo ka mid ah ardayda meeshaan wax ka barata markaan u sheegnay fikirkan iyo hawsha aan wadnana isku dayay inuu riwaayad ahaan u bedelo dhalinyarada kale meesha fadhidan ayagana waxaan ka rajeynaa inay waxyaabo kale noo keenaan riwaayadan waxaa la yiraahdaa dhalinyaro isku tashatay ayaa lagu tanaadaa cafwan ayaa lagu tanaadaa dhalinyaro isku tashatay ayaa lagu tanaadaa aniga oo maxamed abdiqaadir shariifna waxaan ku jiri doonaa warsame marka xubnaha kale ee riwaayadda jila ayaan soo dhaweynaya أنا مقعي أمال محمد يها وحفظيني دونا حاو روايد هذا ما بلعبتي أنا يوم مقعي وياي كيسة محمد دخني روايد وحكو جردونا عيال بسم الله الرحمن الرحيم كل يوم روايد وحكو جردونا موسى maalmahan dhalinyarada waxay u baahan yihiin in la caawiyo oo la taageero sidoo kale dhalinyaradeenna waxaan rabnaa inaan isku tashano dhalinyarada maalmahan waxay ku mashquulsan yihiin hadday noqon lahayd social media hadday noqon lahayd kubad qaarkood waxbarashadii way ka hareen dhalinyarada kale qaarkood ma haystaan waxay qarash wax ku bartaan marka waxaa u baahanahay inaan sameeyo naadiya oo dhalinyaradaas aan ku caawin karo runtii ana keligay way igu adkaanaysaa waxaa u baahnaan doonaa inaan dhalinyarada kala gaarsiiyo si ay i caawiyaan tulo magac noocaga ka dhigaa gobolkaas wallaahi inaan u fikiray noqonaysaa naadiga dhalinyarada haddaan ka dhiga ka waran naadiga dhalinyarada okay ka waran haddaan ka dhigo 5 stars ka waran haddaan ka dhigo okay Somali 5 Stars ayaan ka dhigayaa naadigan waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan isku keeno anoo rabo dhalinyarada kale inaan ka caawiyo marka fikirkaas waa inaan raadiyaa dad igala shaqeeyo marka waxaan marayaa saxaabteedii kale dariska ahayd si ay i caawiyaan وحمود الرحى حطمو جونا وابيك سرعة وربولا تاي نيو كوبد وريكم هذا بدني اور الساعات كان دد مغاله جوغي سو والله الصراحة كنت أنا قاعد هذا بقول ونيجا صور نوينا أيوة اور أصحتها أصحتها كيسوا يا بس الصوت كذا كلك كلا سكون من إنه الصوت كذا والله تاي لكن الصوت كي رجع ودت joke jokes والله إني قلت جروبي نادي بسميه نرجع نواقري مركب وحبة أنا يا عاوين كرا يا عاوين كرا قبل أن بلع الله حبه أباي سولو مقع إن جدك هو برد حما وارك توقت جدي سكبرت ما وتاني حاجة ساس دون كلنا نروح يجينا ولا شيء تاين أصبرنا كرنا
وأسبرن كرا لكن إنا ويجد صوم مرتين إنا جد كنتي استاج سماهن ما أبغى حاصلنا وهاي أرتا أسبرنا أنا مالك السعودية أرتا أنا مجري محمد ورسم على ده أسبرنا ما قاعد أنا كان حاوالي لها سولو حاول كل لسه المقبل هذا وحاول سؤال مو شيء كلمة حاول أبغى وحاربها وحاسم من هذه الرسومات الفارستان لها كل وحاول مرينا سينجل هذا نوكمل تاعي وحاول كل شيء وحكمل ده حتى سينجل لماذا وكعاوننا وحاول أراس كذي مفهوم بركة ناديك سوى الرسومات الفارستان الله هاي أنا يرى ربنا أكو عاونه فكحاول يسوي رتا أراس كذا ند كتير قادرين horta barnaamijka hadoo mashruuc Soomaalida ahayn oo qandaraaska badnaa ku caawiyo waa laga yaabaa maya qandaraas muxuu noqon aroos kala taa waa ka caawinaa ku dheebe maya aniga xaaji waa la ilaahay alxamdulillah waayahay interesa jirnaa wallahi billah qarbalan socotay loo ayaamahan anina kudkeegu wuxuu noqday maqaayad agaya la jirto nasdoor raami oo soo xasan soo qadeynayay ogaan بركني والله أيام مجال بربلان كسر وحوله انترس كذا برا انترس كذا برا أيام مجال أدنى كان سيطرني ومن بجال بيجروني ولا أنا سوا حيبان يبلايو مسكونا ولا تقرب بيجرو ورني وحني ولا يعني فيرني والله إني مجال أنا سكجبنا واحد هنا وما تنقولش أنت ملا بروني جالساتنا وأكسر بحنا سوي حنيه وبنينا أسكرعنا أدنى أبيك سلعين من يلوه والله يا والله كنا حاولنا يا ما سو مرنا كنا شلون مشكلة حوجنا إيه بس محاس كل هذا معنا محاس كل اللي وينيو مقاعد أجيال الله بنويه وطالعنيه ونصدر كسرنا كسر عشان العقل المرات علنيه حوجنا بقوية لما مسكنا كيف فكرنا قبل ما قلنا حوجنا قوية على بعض أرتسلوا كذا إنرجي بدنا هاي سنة كعرف إيه استوى اليوم حان ربا أنا حاسة توافق كريمان ما نسمان أرجع لا تكتب مرك معانا برنتر ما بيقدر القرنة ما هي معنا وكل شيء معنا أيوة يسوداي وحاسم يسومان 5 ستار وحلا محمد الناس أنا سومان 5 ستار وحلا اسميه صوبت اسمين وحاول أذوق من دون $1 وحكونا معنا ساعة ماشي وقصار معنا ستار إنجليش وينه ستار إنجليش محمد ستار ومثل جلد ستار فولها ستار يكون حمد ما Somali 5 ستار الله شنطة Somali له معنا شنطة Somali معنا قالوا أنا مدينة جمع شنطة Somali طلاب ما معنا وحاربة فهم معنا لأن يرى الصومالي ما والله ما بقول له ولا دعوة أيوة هناك شيء ولا هناك بكارجوي معناها الصومالي 5 ستار كل هاي شنطة Somali الواي معناها لأن يرى الصومالي واسعاوننا معناها هذا كله وعاوننا بيتك عاون هذا مثل هذا السوق لأن يرى الناس هذا شو عقوق ما هي أنا أصلا هذا بتدينا دكتور وسألني عاونا وريما سكت كذا ما هي هذه معناها مسكحة وقوف فرا معناها مسكحة فرا مسكحة وقوف فرا ذلك مشروع وصدق ما والله مشروع نقصوا عليه مقصود إنه دون مشروع ما هني نيو أني هذه هذا أفرق السوق بيرن قال يرى ما بدني كرناي ما أسكو بيرنو هذا اللي يدلو رواني وحنا بس عمرنا اللي يدلو مالك استبى كارد إنه يعني أنا عصايلي ما ما أنا إنجو مني ما أنا لو قلت له أنا ما يعني وقتها أنا قلت كشرين إيو ورماش هم إن شاء الله أنا وصل على سكة مشغول أنا مفهم أنا تصور شو فينا هوتيل اللي وشر قرمة اللي تقولي أونلاين أو كشرين أونلاين ما أنا لو قلت له معنا نوني كانوا بجد والله بجد ورنا صحوا أنا مفهم أنا مفهم وعياوا يجدون إداني عنهم أنا ما لا يعني الصومال باكستان مسكحنا كفراء ملاي قوي وملاي بهدوء من السد ما ملاي وحكونا ما جرتين نيو أسكاشم ورانتنا قاستم برو meesha loo baahan yahay وفي عنا سلوى هي بالورسي محاكم تي أو أخبار horta akhbaar waa ahaaya in yaroo iska macquul asxaabtina horta wiilashaan ما أنا حاجة ما كم أنا محاول دونوسا أرتي سوستك ما هذا أنا الله ولا كي وهذا أرتي سوستك أيوه horta wiilasha ciyaar bay ku mashquulsan yihiin iyo waxaan ku dhahay xal waa leega badiyay iyo alaab waxa u soo baxay baabajeeda dhawo habeenkii jiif ma u jiraan ku dhahay
ها جيم بابجيل ده وصوب على بلود ستار marka adiga waxa uu soo sheegay hada warkeyga qaadanayo waa arkayna ما يساس والله dhalinyarada ma baabajay iyadoo lagu tuqro dheelaayo oo la dheelaayo oo nolosha waxyaabaha dhalinyarada aan laga tagaynin haddana waxay u baahan tahay Soomaaliya in aqliga ka shaqeysiino oo maanta sida anaga dhaxdeena isku caawinayna ka shaqeyno Soomaaliya horta waa loo baahan yahay dhalinyaro u baa wax qabsan karto maanta waqtiga aad taaganahay waqtiga odayaasha dilinayeen waqtiga waa ka baxmay hadda anaga u qabsan karnay sax waa ayaga waxa uu sheegay bal inuu maskaxdooda ka rajeena insha Allah samsootarka bobsi anaa ninka maalin kastana diyaarada dal xubin ku jira askar jita awe dhiib ku soo wadaas waa ku baxay balwa waxa kale taabay ninka barbaade ninka computer oo lagu dilaa oo la sagalnayo anaga toobi jeero noogii horna tagnay waalana aadana saxaawna waalana ta kiligees la dhiro wada saxaaw war kiligees la dhiro waayay sabab bay dhaw ka baxay ka baxay waa ka baxay baba atari waxaan shaqeyn anaga u kortoomay bilaayno keena بسم الله نبض ما جبت حياتها فوق السائد كدرس كان كساحة والله أنا أنا قولستني أبوج معليش أنا ما يعني ما وتدا فجروا مالك استوى بلا مالك استينا تودي ما هي وحكي لها طول آخر تيم ما هني بنون بعد واحد والله مالك استوى كران أنا طلعوا هاي ملاني صلاح وقتهم مالك استوى برجي كان سيتر الرول بلا حبة بركزوا وحساك كمبنا والله هو رير بات جرتا بل هرتا aniga wiilal yar istabaatiyo walaal marka ugu horeysay ninkan gabar la wadaan baa kubadeeda garan karay aniga baa la dhashay walaalkay baa toosay isaga saaxiib la tahay hortiin ay la taliyo waxay idin sheegay waan jeclaan lahaa aniga dhageysanaysa hadalka idin sheegay وانا سنة ثانية كنت سفيع على صورتي يري ما غلادين ور حافدها دردق ما حبيش كيس هذه رقم معك سو دحدقه سو حافدها دردق ragga waxaa soo dhex dhigay si gabdhaha idinkaga xishoonayeen baa maxaa ku dhasaama qaybsiga xataa waa lagu hilmaamteen taas baa idiin keentay maanta ninkan anaa iskaga aado waan rago quluwa adiga xaafada aad ordo wali xaafada qabo maxaa meesha ku dhig mar walba saanaan ugu dhex jirtaa gabar la'aanteed ragga guul ma gaareen maxaa qaldan boo guush أنا قاعد أكلم شبنا وواحد والله هذا الوضع إنسان horta barnaamijka idin wada walaalahay soo dhawaada maxaan ku dhahay gabar la'aanteed guul ma gaari kartaa shaydaanka inta iska naataa bal ay halay dhageysto حالك هذا نقل خاصة كذا ما هو معنيش نجاز ودور نوع حافظ كل يوم سوق الله يعني horta waxaa idin wadaa wiilkan walaalkay ah nala joogo warsame iyo aniga baa maalin hore isbaranay waxaan isla garanay in aan aas-aasno gruub dhalinyaro ay ku midaysan yihiin si adinkana geemkan iyo ciyaartan adinkoo wadataan baad wax qabsan kartaane si aan isku caawino dhalinyarada walaalaheena iyo ilmaha yaryar ee naga yaryar ee waxbarashada iyo duruufta maanta ay haysato in aan caawino dowladdu aysan ogeen baana anaga dowlad shaqo kuma lihin injo gaara ma lihin dhalinyaro waxaan naqanaynaa iskaasho أساوي يوم ظروف يسوي مسود سوا بشتري معها وروح وقبل مسود وتوه نوكي نبيها معنا الله أبو مسود كيسينا فيه سماه قلبي كيسمر كهر فيه أنا قبوا وتوا كان كيعيد اللي يوصل كذا وتوا أنا مسكين أنا على سفيع عبيد سنة نستعلم ما عندها برنس وكين وسنة شنيك لو كان على سبعنا marka soo dhawaada maxaan ku dhahay adigana warsamo wiilkan walaalkay waa ila dhashay wiilkan isagoo saaxiibkiisa waa isla walaalkay iska baro wiilashaan marka ugu horeyso bal fikirka aan ka dhaadhacsiino bal hadduu bal noo dhigmaayo aragna kuwa madaxooda bir waaye maya horta waa u baahanna midkan adag kula dhasho u baahanna xoog badanna waa leeyahay oo u baahanna inuu na caawiyo waa rabnaa kan kalena waa rabnaa walaalaha hadda afarteen haddaan meeshaan ka bilowno waxaan ogahay biri dhalinyaro fara badan ay nagu soo xirmayaan marka waxaan rabnaa inaan magacaas ku midoono Somali 5 Stars lahayo waxaan u maleynayaa waxaa meesha aan ka saareenaa kan meeshaan oo ka imaada kan meeshaan oo ka imaada kan meeshaan oo ka imaada annagoo hal magac oo Soomaali wadano waxaan rabnaa inaan caawino dhalinyaro qof walba oo dhalinyaro ah aan rabnaa inaan caawino anaad maanta waxaan hayaa
Instagram ahaya, Facebook ahaya, YouTube ahaya, Snapchat ahaya, waxaasoo dhan aan haysto waxaan rabaa kaliya bis inaa igu shirkoodaan oo muxuu ahaa wax ku darsataan amaanta hal meel ku wada noqono aan dhalinyaradana ku wada caawino see u aragtaa walaalayaalo horta arrin fiican waaye sidaa noo sheegaysid marka ugu horeyso wiilkaan walaalkay iska baro dhinacaaga taagan warsamaa la dhahaa ninkaan kaleetoola asigana waa saaxiibkiis anna waa walaalkay waxaa la dhahaa cigaal marka horta labadooda bara marka ugu horeyso si fikirka uga dhaadhacsan ilaa fikirkaani bas ma ii sheegaysid haye see u aragtaa waxaa idiin sheegay walaalayaalo horta waxaa ka horeyso intaad fikirkiina ii sheegteen aniga ninkaan waa xifaaltana naga dhexeeyo kubada naga dhexeyso maalooda aa dhacday ragu wuxuu iga soo watay bixuli ama qabeeloo ka keenay way iga badiyeen dagaal iyo lugii dhammaayeen jijibiyeen aniga xitaa waxa waaye maanan dheedin hadda waxa waaye wuxuu sheegaya xitaa cabdiqaadir bangaaliga wataa iyo muuse wada oo qoliga dambe uu sheegayay hadda waa kana waa ka badsay bal wareyso Soomaali 5 stars bal xooga ka dubtay bal wareyso nin horta ninkaan lambarka hore ku dhigan yahay nin malaa dadna waa la iska badiyaa laakiin fikirkaa ma sheegto maalin hore si wax buu fahansanaya waana kaa raaligelinaya insha allah waxaan jeclaanaya inaan kula qabto aniga ku warsas buu fahansanaya ninkaan waxaan dhaabanayo xisbi muunin israwana xisbiyaa bila asaasayay waxaas ma jiraan mashruuc dhammaa waxaan non-governmental organization waaye non-profit waaye micnaha waxaa rabnaa keliya adi xooggaaga iyo xooggaygan isku biirina bes waxaa u baahanay maasha allah wax wada fahmay xagga waxaa naga soo martaniyo qof dumar badanaana dumarkaniyo qayb weyn ee bulshada kale ay ka qaataan aad iyo aad umaasanta haddana waxaan jeclaanayo xooga aad ugu sheegaysay ninkaan waa ogtahay waa xooga kubadda isugu raaxdeysanaysaan aarna bis inaa maskaxda u bedelna lebis ninkaan waa ogtahay qorshe urtuga lagu diro ninka fashiliye waaye maasha allah asnanoo ka qayb galo jeceliya waaye هذا ما صاحبتي قالك هدو يراي او معناها نيكي دمايو مدحد كا هدو يراي انا Soomaali 5 stars ويليا لكن waxa wada balanahay insha Allah hadu ilaahay yiraahdo inaan micnaha fikirkiina dhageysano fikir isku darsano dadka fikir la wadaagno fikirkooda soo dhaweeyno waxna inaan talent aan leenahay oo Soomaalida aan baalkii hadu ilaahay yiraahdo talentigooda soo dhaweyn karno qof walba fikirkiisa dhageysan karno ana rajeynaya adinkana waan ku biiro Soomaali 5 stars هذا ما سنتين waa walaalkay keesadano xaqna anagana xubnaa ka ahayn waan samaynaynay marka soo dhawaada aan leeyahay walaalihi haddaan uga cajisteen naga raali चादर आलो कालो काका नाचे ताले बोले दिया
محمد شريف هذه عنده ماسية حتى أنا برنامج كني بداية نسيب كايا قال كان دعنا الرجل يدور أنت ماشي في السوق والسخون الدونا ده كان معي ناس كسر يستوي دلوقتي ومكان كيف فرط كنا على واحد قرن بجرو لكن ده كوا على واحد كي إلا هو ديو انترست واحد يسكليو بركة يا الاسكعوان كيف فرط كنا على جدولي وحبنا أنت ماشي في السوق برنامج كنا وبرنامج جرو فرعده هديه بدنا ومحسن إن شاء الله مركب مدرسة السوق استاجر قف كلام مركب قبصنا ويركب محسن قال ولودين دونا مكان واحد سؤال عندك نكون جرو عالو سؤال أساس كتاب جرتو عالو قف كلام مركب قبصنا حتى ورسالة كرتا إنه هديه تسكت صار واحد لودين صوب سكراعي عايز سكاس كقاضي وعايز تدينس ولا شيء أنا القرن سيدا أقول تقانين waa mahadsantahay walaalkay waxaan ku dhahay barnaamijkan adiga furtaa jeclaay hadaa ii dhiibtana dhib malahan anigaa furaayo wiilashaan quruxda badan baa hal wiil kasoo baxsan doonaa horta amali aniga waa wiilashaan ma gees kaal kala gabdhaha isasaayo waay maya adiga gabdhaha aniga wiilashaan baa hal wiil kasoo baxsan doonaa hayo waay yarkaan baa u wacanaya cad isteelka ah soo dhawow bal saaxiib yarka waa maasha allah kusoo dhawaa soo dhawow adigoo magacaaga ku bilaabaya marka ugu horeyso marka xigtana sida xalfadan iyo barnaamijkan u aragto fikirkaaga bal noo sheeg marka ugu horeyso inaan fikirkiisiina waxaan ka hilmaamnay lambarada waxay ka bilaabanaa 30 ilaa 40 lambarka barta kaaga dhacdo ay subskuurida da ku soo baxdo اولا magacaygu waa cali naasir cali oo ugu faraxsanahay Somali 5 star kulley meel kastoo majlis kastoo la isugu yimaado wax xunna waa laga sheegi karaa wax wanaagsanna waa laga sheegi karaa haddii la yidhaahdo xumaan baa laga hadlayaa dabcan waxyaabo badan baa looga hadli karaayo meelo badan baa looga faaqidi karaa laakiinse Somali 5 star aniga hal wax baan ku darsanayaa halka waxaan ku darsanayo waxay tahay dabcan waxa laga hadlay challenge inay sameeyaan iyo waxyaabo la mid ah waxaan dhihi lahaa challenge-ga ay sameeyaan inay ku daraan challenge quseeyo wadanidnimo iyo dawladda Soomaaliya in challenge-gaas ay ku daraan challenge gobol kasta magaalo kasta iyo tuulo kastaba horumarkooda ay kaga talin karaan ayahooda dambana ay kaga fikiri karaan waxa kale oo dheeriga ka ah waxaa jira haddaynu nahay Soomaali wax la yiraahdo reaction oo haddaan tusaale ahaan usoo qaadano waxaa jira dad badan oo sida maamuliyuun xasar dad badan oo aad looga hadlo tusaale ahaan oo hadalhaynta ugu badan looga hadlo waxa saa ugu soo qaato waxay tahay dad waxaa jira social media aad ugu takhasusay oo haddana qof maanta ka daaweyn ama madaxweyne ha noqdo ama qof fanaan ha noqdo ama qof aad fan waa oo dad ka qosqosaysiiya inay kaga hadlaan oo aad u baalga u daba dhigtaan laakiin waxaan dhihi karaa social media haddii wax la gelinayo waa ogtihiin waxaan nahaa Soomaali haddii qofka la rabo in la baaro documentary-giisa la geliyo meesha ugu horreyso la geliyo waa YouTube channel waxa la geliyana waa Soomaali ama Soomaaliya haddii la geliyo waxa ugu horreeyo soo baxayana horta waa laga wada warhaya iyo waxa uu ay soo baxay inay soo baxayaan dad hub wata dad hadduu ilaah ku imahay wada dacdaraysan dad wada dhibaataysan dad wada gaajaysan social media wax la soo gelinayo laga dhigo wax Soomaaliya qurxinaya iyo jooga Soomaaliya wax qurxinaya aadna waa ugu faraxsanahay barnaamijkan numberka meequu ka bilaabanaya
bal nasiibkaaga tijaabi aragna wax kuu soo bixi doono waxaan qabsanaynaa 38 ها حق وسيك برا وفير هاي كوسو بحيث أما لما يريدون الصلاحية ما هي يصور هديدان baa ku xusan ugu talaga shay Somali 5 star ku soo dhawo waa ku leenahay dewarka هذه المعصية هاي وحو معنا بس كعمل فرن حفلتها كيف جلس وحفلة Somali 5 star هديدا إذا بحنسو أولا خطبنا سيد أكل دوي سوى ديسنسي إذا هذا لك هو والله كده Somali 5 star وديسنسي على يري هذا كديس بيعني هذا نقدر حينا نطبق هاي السلام عليكم دمان والسلام يا بنتي شرفتها كسو قيب قشي حفلتن waxaan aad iyo aad u salaamayaa qabanqaabiyaasha xafladan sida quruxda badan lagu soo qabanqaabiyey sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiyaha xafladda oo aynu halkan codkiisii ka maqlaynay sida quruxda badan ee barnaamijka xafladda ku saabsan tahay iyo uu inoogu sharaxay asaaska barnaamijkan sida aan filayo waxa uu mawduucani ku saabsan yahay ama uu dhiggiisu yahay arday dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo isu tagtay kana dhidiyay dhibaatooyinka ka jira ee haysta ummadda Soomaali shantii Soomaali meel kasta ku noolaadeen markii aan maqlay arrinka runtii aad iyo aad baan u farxay waayo waxaan nahay dad Soomaali ah Soomaalinimaduna waa wax waajib inaga inuu ah meel kasta oo joogno waana isir aynu inagu wada leenahay ujeedada barnaamijkan yani ama ururkan loo aasaasay aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waana wax loo baahnaa laxdadan iyo maanta waqtigan aynu joogno ay ku saabsan yihiin ama ay ku jiraan ummadda Soomaali meel kasta ha joogtay laba qodob ayaan halkan ka oranayaa taas waa hambaliyadii qodobkooda waxa weeye talo aan siinayo ama soo jeedinayo sida aynu ka wada arkayno ama uu bixinayo maxaan ku sheegay title-ka guud meesha ku yaala waxa weeye Somali 5 stars haddaan jamac ka dhigno ingiriisdan inaad naga daysaan baa qurux badnayd oo aad Soomaaligeena inooga dhigtaan Soomaaliyeed maasha Allah taas magacaasi waa magac qof kasta oo Soomaali ah ama ha ku noolaada Djibouti ama ha ku noolaada Somaliland ama Soomaaliya ama Garissa ama Jigjiga oo waxaynu dalad aynu wada huwanahay hase ahaatee midkaan ku darsanaya waxa weeye magacan Soomaali shantu waa wada leedahay saad uga dhawaajisay laakiin xaggan waa la wada joogaa marka waa la wada joogaa iyo Asia oo waa la wada joogaa anaga laftirkeeduna shanta Soomaali ma ku dhimiyo oo anaga soo waan joognaa laakiin in la balaariyo oo يعني برنامجكي لا بلاريو سيدي تahay way dad dhalinyaro ah baynu tiineen wax wada qabsanana waa inaga kartideena ayay ku xiran tahay iyo sida isku duubnideen tahay mar walba base-ka la dhigayo haduu uu xumaado ama uu clear noqon waayo ani horumar kasto aad doonayso waa in base-ka la dhigayo uu clear noqdaan waa inay iswaafaqaan title-kaaga iyo face-ka وين اسواقع كنتي waxaan markan shanta Soomaali maqlay yani qiro awayaasha 1960 qaaday oo kale ayaa gashay laakiin ana la yara kaftame
gender balance weeyo waa maqaalanayna haddaan waqtiga idinku dheerayno inta waaqayn badan baa heliyseen laakiin haddana waxaan kafta yar dhex geliyey ila reality-gu waa muhiim soomaalina waxaan aaminsanahay meel kasta ay joogto waxay ku dhismi laadahay waxa weeye yacni reality-gay ka leexataa actionkana way ku degdegtaa labada wax ee yacni innagayna taariikhdana way lumisaa waa saddexdaa qodob waa saddexda qodobba waa saddex qodobo kala daran inay taariikhda lumiso reality-gana ay indhaha iska tirto actionkana ku degdegto ay bixinayso marka 1960gii dee taariikhda waad wada haysaan waxay la mid yihiin SYL oo kale la mid yihiin SYL oo kale la mid yihiin laakiin dalaasi indi wixii laga dhaxlay cidna loo sheegi maayo inaanay taas oo kale aanay noqon oo yacni maanta bayska aad ka bilaabaysaan Somali 5 stars waxay ahayd oo aan ku soo kordhinaya waxa weeye hadalka ku tuman maaye in yacni maanta xafladan oo kalena la ballaariyo baarlamaanka aynu ku hordhigano ayay ahayd baarlamaanka Bangladesh aynu ku hordhigano ayay ahayd shantii Soomaali shantoodii calana lagu dhajiyo meesha Soomaali ayay ahayd dhalinyaradii shantii Soomaali aad iyo aad baad mahadsantihiin inaad ku darsataan oo magaca iyo maxaan ku sheegay dastuurka iyo xeerka aad u dejisateen ee shanta Soomaali inaad waafajisaan actionkiina iyo qowlkiina iyo magaca isla jaan qaadaan aad bay muhiim u tahay diyaarna waan u nahay wixii tala iyo tusaalaha iyo maxaan ku sheegay dhiirigelina ba inaan kaga qayb qaadano aad iyo aad waan ku هذا وين سبحان هذا وما صدق هل مرة وحنا إيه مشكلة هل مرة عايدة بعد دين تقص sorry أنا كمان عايدة حس اليوم بس Soomaali توس اليوم بنا عادة مرة عايدة مو نعد برا وحنا تدافودي international تدافودي international university وحنا هاي master MDS بنكتب master diploma studies هذا وما صدق هذا مركم لا هذا من الشيء marka aad uma sitay magaca dhaqanka gudoomiyaha Joosan oo saxayo gabadha marka hadda sheegaysa Soomaaliya qaybadeeda hadda ka hor oday hotelka oo iskuul ku soo xigo xaflad lagu dhigaa ku kulan oo waxaan ahay Soomaaliya qaybadeeda soo sheegay wax ku daro Mombasa oo cana Mombasa Soomaaliya midna saxakooda lagu wiilaato hadda joogto marka hadda qof oo waxna sabtan ilaa iyo ilaa 4 sano صدق الله sorry waxaan moodayay tiradii xagan xad ka bilowday صدق الله صدق kayga baa maqsaday صدق ما qabsatay hal su'aal oo ugu xasan halka su'aal maluwaad keenayo su'aashana waa sawaabkeeda uga markii la laabto laakiin waxaan ku weydiinayaa hadda iskada markaa ku soo degaysay laba rashka lacag kala siin midka adiga asar lacag kala siin aad gogolaan oo sheego wasra qanaani adiga wuxuu ku dhahayay labada nin rakshada aad soo kala raacdeen lacagta aad kala siisay afbangool noogu sheeg labada raksho macnaha ku sheegaa mise waxaan ku sheegaa shaqada macnaha bangaali lacagtii aad siisay intii ay hayso 40 bangaali ku sheegay horta inta Bangladesh joogay oo dhan meel u dhow jaamacadan ayaan ku noolaayo tishta kan ku raaci jiray tishta kan marka ma 50 wali ku raaci ba gaari ba ما شاء الله نقول فضي أجي وما دي نسي مهمتنا كهذه الشيء واساس بالودين أيوة وحناشكتا markii oo inta ka baxday dadka hadda markaa muqdisho aadaysay markii ay sii bicisay macnaha ma jeclayd in Bangladesh joogto masaka orada
أنا أرد بكم بشيء أمريكا بحاجة أرد أنا كأرد ما نهيم وايد وحبرشي ذا طالب إنجليزي ما شاء الله هذه دوم بس أنا يو أن ميل ده ترنسد وقصة كتير وقصة نخنا يعني ما شاء الله كمان كنا نقضي ميل أنا وقع عرب إنجليزي ميسي ما شاء الله هديت برنامج كان قوي سيد أحمد هنا عندنا ومعك سوقنا أبدا سومال فاكستر حبيب سلو ما شاء الله كيسو مركان هذيك بباشر اختار كان عبرنا إلى أمبل كوفيد نفذ أنت ما يعرف حاجة كوفيد اختار كان يشيء أمبل هبينكي واحد فرج بالي ده نحسن عليه كده نحسن حدي الجار وفرضه معك horta soo dhawow aniga waa kaqaana kule ku baran maayo dadkaan saddexdaada magac u sheeg meeshaan inaa senior duqoow ku taho siin garan u raaxsi magacayga Najiib Cabdi Caamil Allah senior mihi laakiin ardayda jaamacadda Daafud ka baxdan waa ahay master aan ka sameeyay university logistics aan sameeyay hawlo kalena hadda u joogaa intaas aan kusoo koobay okay number qabsaada صدقني شام وحبكم ما حسنا ما فهم ايوه بدلها صدقني لعن ما لقيت تلقوا حاجه ما شاء الله نجيب هذه وما سلم ولا روح حتى هني برنامج كده وسوق مجموعي هل سؤال بس يا سؤال سنة الناس كبر ترى مرو سؤال اسمه 5 سنة أمر سؤال سواء 5 سنة برنامج 11 صفر و 5 سنة قالوا بلاي تطرق ودنا نبوك دفعنا عمر aniga hadda waxaa jeclahay isku furto taariikhda iyo wax meel Bangladesh iga soo martay isku furoon hadda ka hor intaan lacagta baranin baa waxa dhahay 30 ka waay tan 40 raqshada lagu raacaa marka gawar mir burda kanada waxay u tiraamalay suuqa intii la u tiraamalay lacagan bas ku raacay in kasana 30 ka bas lagu raacaa 30 ka waxa ahayd masiihay taas ay ku tanaa lacagta markaa bartana ana ka xishooday يا وطن كل عقد دك كجرا وحتى كلام لغض وضوء يوم كان يعني كابتن باولو نقطة ير هذا كور وعد على البوكا ير الشغلي تجنو وأصحاب أنا عليه وأصحاب أهين على وقت على البوكا كل دوني ير كمر كبوك كدوني وانين تبغى كلام سواء على ير مركلو ترى العقد بور وصبر يا وقال بس أنا كم بشيء العقد مال يوجد مبلغ إلا أفر بلو مركز جوما أبلا والعقد أبغى بصوتي صوته كيسو أنا العقد جعله كاعد لكن أنا العقد أقول ولا صدق كتكوه إلهي تقول والله ما كارون شيء والعقد ولا إلهي ما هو قصة حسست بركة سوا عاد علي يركي إيمانه يصوب برصنا ومشغول سامر ببناك الرابع أو هون نكاس ساسو كاروا نكاس ولا عقد يوتيوب وكصبرت أفرت كل وصلت ولي من عمته أنا مرة صار فلا هذا أفرت كل إنك جاب قوتي على العقد وصبرت لأنه هو حاجة أو إسكافي في عمل أو عبر شذا حتى أنت أصير الشيء جوا جامعة ولا تكون فرفورة وصل كذا بكيما العقد وصل رفتيم مركز سوني كمان هونه نيجي جاري على سوني كنا نيجي سالان سوني كنا أنا ده بنا نقولوا بحث يمشي نبضي على اليوم جامعة العقد سمستر كلا يوم ما هذا وما سنتي برنامج كان هل كانوا لوجي هاي عرضنا وقتي سوى وقتي برنامج كان سومالي فات ستار مرناهم إلى بدون برنامج كان غيرتنا أخوي يعني إذا سكون أنت إن شاء الله تم إيمت كبرنا وكل بدونا ما دام تك مسؤولين مجال ليش أفريقيا. ابنها جوديجا هذا جامعة مرادنا الصحوة بدومية وكم ذا أرضيدا وكم ذا جوديجا أرضيدا جامعة بنغلاديش University of Health Science Soma. Okay, markaan soo dhawo isagana waxaan ka rabnaa inuu ku soo dhaweeyo gudoomiyaha ardayda Bangladesh mudane Abdulqaadir Cusmaan Nuur. Soo dhawo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بعد dhammaan aad ay u mahadsantihiin marti sharafta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan runtii barnaamijkan waxaa waaye waa barnaamij dhalinyaro waaye dhammaan yani marka laga hadlaayo isbedelada dunida waxaa horseeda waa dadka dhalinyarada waaye
markaan qur-aanka waxaan ku arkaynaa innahum fityatun aamanuu birabbihim qaaluu fattanuu qaaluu ibraahim marka dunidoo dhanba waxa yani horumarka horseeda waxaa waaye waa dhalinyarada waaye dalaan waaqic hadda jiray ay u baahan yihiin يعني dadka hadda waxaan yani dadka idaacadaha ka hadla ama siyaasiyiinta ah dad u naxariisanaya conceptka guud ee yani ma qofku waxa laga yaabaa inuu ku fikiro yani sabab uu cod ku wadi karo ama dadka ay rabaan dadka yani ama meesha uu ka soo baxayo hadii qabiilkii waxa soo jecel waxa laga yaabaa inuu qabiil ku soo gabo hadii yani maamul iyo deegaan gaar haduu yani ka rabaan waxa laga yaabaa inuu magac ku kaambin karo laakiin qof ka fikiraya inuu public concern ka ama yani public perception ka asoo uu saxo ama fikirdu aaminsan yahay ma jiro marka waxaan aaminsanahay marka in aanan sugin oo aanan dhihin maaragtay dhalinyaradu waa hogaamiyaasha Britain inaanan hogaamiyaasha maanta waxaan soo jeedinayaa in maaragtay dhalinyaradu ay ayagu wada tashtaan oo narrative odayaasha iska daayaan ayagu wax ku heshiiyaan calaamadiisa waxaan muhiim ah waxaan kaloo idin sheegayaa yani midnimada Soomaaliya waa qadiyad diritaan waaye runtii adduunku waxaa jira dawlado yar yar jiro oo yani aad u yar yar qadar yani waxa ognahay waa dawlad aad u qani ah xoolo haysato laakiin haddana kaligeed ma jiri karto waxay u baahan tahay dawlad ilaalisa حتى جيبوتي كان صوماليدا فرانسيسكا إلالية يعني دولة هي سب كستي وحرمرتو يعني ما جري كرتو مركا صوماليدا وحنا تد اسكو يسرا اسكو دقنا يعني اسكو دينا waxa soo dhama wadaagna waxa jira yani narrative ka iyo qaabka sida walaashay umar ka sheekeynaysi oo ahaa yani taariikhaha la weeciyay runtii wax badan baa ka jiro yani qaabka taariikhaha loo sheegayo qof kasta waxa moodaa inuu dhankiisa iyo qaabka uu yani u rabo macnaha uu ka waraayo marka runtii marka waxaan u baahanaa marka inaan qaabka u fikirno dhalinyaradu iyadu wada hadasho narrative-ka iyo maaragtay narrative cusub ay samayso ayaga wax isku waafaqaan iskana daayaan hadaladii odayaashii dadkii hore aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah والسلام يا دمان قدومياشا يا أرتيدا هلكن فرديدا وقتي ويري هاي هذا كم ديران عيو لكن واحد ربع إن قضبير عن كتر صداعو ومركو روحهم هذعلنا يا أصحابتي برنامج كان سواء أبو شيء سواء قبل قابسنا نروح له بدل إنه أوفر قلنا عاو كشقيسي وحسيت أنا أقوم هذعلنا يا مدن شريف قدومي شريف أو يعني كسو بحضي إن برنامج كان لسه جارسيو بقالتش لسه جارسيو sidoo gudoomiyaha hore gudoomiyaha nofray maxalli raahda xafladeena caawa oo ku sheegay barnaamijkan in uu ka bilowday maxalli raahda magaalada Germany wadanka Germany oo hadda soo ku nool yahay na rajeynayaan in maxalli raahda meel walba oo adduunyada ka mid ah oo Soomaaliya joogto inay gaarsiiyaan runtii waa magac aad soo jiidasho u leh Somali 5 stars qof walba oo maqla oo Soomaaliyeed ku jirto waxaan isleeyahay inuu u soo kacayo laakiin ay muhiim tahay in la isla fahmo muhiimadda ay leedahay maxaa la yiraahdaa in loo soo imaaday in la midoobo in wax la wada qabsado dhalinyarada Soomaaliyeed maanta meel walba ay joogaan waxay u baahan yihiin midnimo xag walba waxay u baahan yihiin midnimo in fikirkooda la mideeyo in maxaa la yiraahdaa wax walba laga mideeyo runtii aad iyo aad aan u dhiirigelinayaa barnaamijkan inuu xarajina idinka inaad ka wada qayb qaadataan oo aad u soo dhaweysaan qof walba waxa la yiraahdaa fikradaha ka guuxaya laakiin waxa la yaabaa dad badan inaysan haysan oo fikrad fiican ay ka buuxaysan laakiin aysan haysan meel ay waxa la yiraahdaa fikradooda ku soo bandhigaan sida iyaga inoo sheegayna yani waxay hayaan barnaamijyo waxa la yiraahdaa ku soo bandhigaan fikradaha ka guuxa dhalinyarada ama hibada ay leeyihiin dhalinyarada u hayaan meel ay ku soo bandhigaan كل واحد رجينا يا dadka si fiican ugu fahmaan waxa rabana ugu dar dadku inay si fiican wax ugu fahmaan inay barnaamijkooda qoraal u sameeyaan barnaamijku wuxuu yahay waxyaabaha uu qabanayo wax ka kooban yahay yani detailskiisa barnaamijka inay qoraal u sameeyaan sida markay sidaan oo kale arday dhalinyarada soo keenaan ee u qeybi karaan maxaa la yiraahdaa isaas ugu akhrisan karaan qofka waxa laga yaabaa in yani hadal ay ku dhameyn waayaan haddii hadal aad tiraahdo qof wax ugu sheegayaan dhinac walba ku furaya marka waxaan kula talin lahaa iyagana inay barnaamijkooda qoraan oo ay ka dhigaan maxaa la yiraahdaa barnaamij qoraal oo si fiican u habaysan insha Allah ta'ala mar walba maxaa la yiraahdaa markaan barnaamijkan ka hadlayo inaan halkan ku xuso waxaan dhihi karaa inaan ugu bishaaray dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata wadanka Bangladesh ururkii uu tahay oo colleges geeyay maxaa la yiraahdaa wasaaradda waxbarashada ee wadanka la dhicin ardaydaas leeyahay Soomaaliyeed meesha ay joogto haddana raasanayaan kadibna cashada aadi doonaa marka soo dhawaada
ফ্রেম ঠিক করবো কে দুললে সালে আশা qaybta dambe waxaan aadi doonaa cashada balse waxaan rabaa inaan halkan aan uga mahadceliyo gabagabadii anagoo joogna dhammaan mas-uuliyiintii ajiibtay inay barnaamijka nagala soo qayb gashay aad uga mahadcelinaya sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa walaalahay Burhan Kayse Amaal iyo Abduqaadir iyo Mustafa oo ayaguna igala shaqeeyay hawshan sida ay u suurtagal leed xaqiiq markii laga hadlo dhanka anigu ugu dhib badan tahay oo kala fahamkeeda laakiin ayaga aad igu fududay meeshaan ay maado waan uga mahadcelinayaa sidoo kale dhammaan xubnayaasha ka soo qayb galay munaasabadan ayagana uga mahadcelinayaa waxaa sidoo kale aan rabaa inaan mahadceliyo dhammaan xubnaha Somali 5 Stars oo aad u tiro badan aan rabaa ayagana inaan mahadceliyo oo hawshan igu dhiirigeliyay inaan meeshaan ku qabanno igana qaatay fikirka inaan Bangladesh aan u xulno meesha barnaamijka ku qabanayno waxaa ka mid ah dhammaan asxaabtaasi نعيمو أحمد هيبة سمية ياسين عبد الرحمن محمود أحمد سعيد عنب حسين جمعالة وراشي فردوسة حسن جمعالة عبد الرحمن عبد الله الداهر صاحبك مرسل محمد علي رون أحمد كتب أيان محمود محمد عبد السلام علي عبدي آذن عبد آذن فوسيم محمود محمد وفنانة آدلو ذي يقانو kuna sugan wadanka UK waxaan idin ka ilmaamay sidoo kale Somali 5 Stars waxa ku jirto ilaa 3 fanaan oo ayagana fanaaniinta la yaqaan kamid ah oo xubnaha groupka aan kamid ah waxa kamid ah Fuusiyo waxa kamid ah fanaan kale oo isagana la yiraahdo Mawlid Jaral waxa kamid ah adduunyada dhammaan asageed hablaha taanka aaminay anifka ugu jeclaa ma ilaawi karo ifka ugu jeclaa ma ilaawi karo adduunyada dhammaan asageed hablaha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقعي ونعيمة. عوالي يوم فرحنا بينا كسونا الجلو حفلة كدوين حفلته هرين وطيب بشيء. تاسو هالكلية بداية هاي. حفلة Somali 5 Stars. عاديات بابو حملين يا رجالك. قرحنا بدنا كاني بكتا قرحنا بدنا. كل هذيل دول يو بعدين حاجاتو وإلى بيس هجاجو بيس هدو هجاجنا وإلى دنيتها برضه محي هذي بيس يهو هذي وحاجاتيا وحول وحاجاتيا بركة هذا البلد عرفنا يوم البدء يدي مناسبي بركة واحد عادي هذا مجازية محي هذا كمان مكاني إن السجي وحق له خلق لي عن الجاسم إنه دخل فوق الشراب وحكى الله لي هاي ما كبرت
markaad keento fakar ah inaad samayso organization ama macnaha group waa inaad ururiso waxa la yidhaahdo xog ururin aad samayso markastaad xog ururiso risalka kuu soo baxaya waa risal ka qurux badan oo lagu guuleysto marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa kale dhageytoo mashquulsan yihiin cashadii lagu kala jeedaanay hambalyo 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 means welcome. أصحابها هذه أهل الجماعة والسلام يا بحيث ولا مقعد وهني كل بحيث ولا حلفنا عاوة كسر غير الله حلفتي فلا كل أهل والجد وانتهي وحلفت قارية وحلفت اللي يرضى لك يسلوك فيه بحيث ولا مكا يضع إسلام هاي وحلا هاي دليرة حلفت سواء بشيء آدية آدونا جماعتي إن شاء الله وحنا رجينا أنا هلا بجوتنا ويا وقت استودنا الله سميه والمركز ولا كلا هذه هاي مرة وحجعلها هاي بحيث ولا إنتاجين كبلغة تذكر الخطأ بحيث ولا كل يعود شبه بحبويا waxaan leeyahay bariyo waxay soo leedahay laga soo qeybgeliyay xalfada gaar ahaan walaashay anad waxaan leeyahay maankii bariyo kamid ah maanta asxaabtii kasoo qayb gashay barnaamijkan xalfada oo ugu talagalay gruubka Soomaali Pakistan marka ugu horeyso waan u hambalyeynaya waxaan leeyahay guusha iyo horumarka iyo maxqad juhdiga aad bixiseen maanta waa ka marqayseen oo anaga ka marqaatiyo kasoo qayb galnay maxaa ku dhahdaa hadda ka hor odaygeeno wuxuu yidhi uu soo qaaday sideed tulooda oo xirna oo isku xiran wuxuu yidhi ciyaalkiisa u shaac sideedaan ule isku xiran bal inaad kala jibisaan isku daya marka ilmihii way samey waayeen hal baa loogu bixiyo waxaan jibi baa lagu yidhi midba midka kale uu jibiya halkii oo marka waxay ka micno tahay lagu dhahay sideediinaan idinkoo isku xiran leedima kala qaadi karo laakiin markaa hal kala noqotaan waa kala jijibin karaayo dad la kala qaadi karaa marka anigoo taas dardaaran idinkaga dhigaayo aan waxaan idin leeyahay dhalinyaro tayo iyo horumar leh maantana roobnimada noo eho aan ku daysan doonaa tihiin waan idinkala qayb qaadan doonaa barnaamij walbo aad soo diyaarsataan inaan idinkala qayb qaadanaan diyaar u nahay anagoo isku duuban ardayda Bangladesh waxaan idin leenahay horumar wacan hore u socda dadaal intaan ka badan baan ka rajeynaynaa idinkoo guulo badan oo lagu faano dadka ay soo qaataan dhalisaan insha Allah waxaan halkaan si qaas ugu salaamayaa walaalka Yahaafo sidoo kale waxaan aad uga salaamayaa Asad Qarni sidoo kale waxaan salaamayaa Maxamed Shariif intiina kale toorana kale gruubkan aniga waan arkaa oo kale kamid min laakiin asxaabta daawatay inta badan ku xiran baa kamid ahay marka idinkoo isku duuban baan idin mahad celinaya dhammaan thank you হাওয়ায় করেছি যে দাম তোমার হাওয়ায় করেছি যে দাম আমার আপন হারা প্রাণ আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ তোমার হাওয়ায় করেছি যে দাম আগুন হাওয়ায় করেছি যে দাম আমার আপন হারা প্রাণ আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ তোমার হাওয়ায় করেছি যে দাম আগুন হাওয়ায় করেছি যে দাম তোমার রসকে কিংসুকে তোমার রসকে কিংসুকে অলক্ষ রং লাগলো আমার কারণের সুখে তোমার রসকে কিংসুকে অলক্ষ রং লাগলো আমার কারণের সুখে তোমার ঝাউয়ের দলে মন ভরিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান তোমার হাওয়ায় করেছি যে দান
আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায় রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন্ধায় পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায় রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন্ধায় তোমার প্রজাপতির পাখা তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ জামা মুগ্ধ চোখের রঙের স্বপন মাখা তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ জামা মুগ্ধ চোখের রঙের স্বপন মাখা তোমার চাঁদের আলোয় মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আমার আপন হারা প্রাণ আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান আগুন হাওয়ায়